ها maanta xaggan waxaan u imaanay inaan qabno shir jaraa'id oo ku saabsanaa inaan u jawaabno nin senator ah oo maxay ahayd Soomaalida nafta ku dhibay inaan u jawaabno bishii la soo dhaafay 28deedii iyo aqalka sare wuxuu ka yiri in organization-kan Isroon la yiraahdo ma ahan organization howl qaban kara su'aalo badan oo nagu mudmuday uu leeyahay dhaqaalahooda iyo wuxuu waxba ka siiya marka waxaan go'aan ku gaarnay inaan u jawaabno oo niraahno waxa aad sheegto waa beenta aanan niraahno inaad aad ka jawaabtid oo wixii aad ku hadashay oo dhan oo beenta ahaa oo khaladka ahaayo dhanna aad u dib u celiyo haddii kale aan maxkamadda la aadi doono waxyaabaha horta ugu muhiimsan oo shirkan jaraa'id aan qabano number 1 waxa weeyaan Soomaalidu maalin walba meelaha laga caayaa meelahana laga aflagaadeeyaa ayagoo dadku marka waxna ma qabano meeshii naloo kursiga la yiraahdo ka kaca waan ka kacnaa meeshina lagu aflagaadeeyo waan ka guurnaa marka maanta tan waxay cadeynaysaa inay Soomaalidu ay yihiin dad wax badan samray laakiin markii laga badbaday arintu inay noqonayaan dad wax iska celinayo khaasatan ururkan Isroon waa urur laga yaqaan gobolkan dadka sharciyada dejiyay ay yaqaanaan inaan nahay dad dariiq sax ku socda laakiin markii wax qaldan yimaadaan inaan iska celino waxaan maanta halkan uga mahad celinayaa dadkeena Soomaalida ah oo meesha yimid oo ku jirto care oo ku jirto Soomaali badan oo xaggan ka timid Somali Action Alliance ay timid African Economic Development ay timid African and Liberian community-ga ay noo yimaadeen iyo kuwa kale oo ka imaadeen on friends nayo kaniisada ka imaadeen oo Mary's Pence la dhaho waxa laakiin halkan Soomaalida uga jeedinaya haddaad maalin walba qof adinka idin ka mid la isku taago oo meesha laga caayo oo intaad la soo safan lahaydeen oo la safan lahaydeen aad ka carartaan waxa ogaataan dhibaatooyinka hadda noogu weyn ee dadkayga haysta inay yihiin maxaa iigu jiro maxaa maslaxad ka helaa arintaas dhibaato naga haysata marka waxa ogaataan in maalinba qof marka meel laga caynayo organization marka meel laga caynayo community-geena waana la ogaado sirteena waa inaan isku nimaanaa ninkan waa inaan niraahnaa hadalkaaga dib u soo celi waa inaan niraahnaa daycare-ka Somali daycare-ka ninka tarab dhibka u keenay waa ninkan waa inaan ninkan la xisaabtanaa si aqliyan ah sharcigana aan la marnaa laakiin taas waxaan sameyn karnaa marka anagu isku nimaano السلام عليكم مقعي وحل هذا جيلان محمد حسين وحنا قدومي هيدا كير لو يقانو هيدا كير وهيدا ودقالمتا حقوق ضدك مسلمين تا مريكنكا وحنا قدومي حفيزكا كير مينيسوتا maanta shir jaraa'id baa lagu qabtay St Paul oo lagu qabtay aqalka weyn ee St Paul ku yaala kaasoo laga hadlayay runtii in la taageero hay'ad ugu muhiimsan oo hay'ad Isroon la yiraahdo oo u dadaasha amba wax u qabata dhinaca caafimaadka iyo waxyaabihii ku soo agaaro dhan hay'adaasoo ka codsanaysay dawladdu inay taageerto oo lagu bilaabay aflagaada ka timaaday nin xildhibaan ah oo ka tirsan dimuqraadiga ninkaas oo runtii af aan wax laga ogeyn ka iri hay'adaas taasoo aan hadda cambaarinayna maanta oo aan lahayn runtii dadweynaha Soomaaliya ku nool gobolka Minnesota maalgelinta loo baahan yahay sidii ay u kafiin lahayn wax loogu qaban lahaa mashruuca ay u baahan yihiin oo dhan lama siiyo waxay noqotay hay'adihii markii ay wax dalbadaan in hay'adihii iyagana fowdo lagu furo oo dacayad lagu furo maantana arrinkaas aanu ka hadlaynay oo cambaarinayno waxaanu leenahay dadka Soomaalida mar walba inay ogaadaan aqalkan capital-ka ah iyagaas kale way ka mid yihiin dadka meesha jooga Mareykanka Minnesota oo dhan inay u yimaadaan oo u doodaan mar walba sidii ay u heli lahaayeen maalgelin ku filan oo arrimaha runtii taabanaya bulshada Soomaalida wax lagu qabto in la taageerana hay'adda Isroon oo runtii dadaal badan muujisay maantana iyadii looga daba imaaday oo maantana taaganahay inaan caawino Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa weeyaan shir jaraa'id ayaa maanta lagu qabtay State Capital-ka Minneapolis Minnesota khaasan St Paul shir jaraa'idkaas oo maartay quseeya Isroon organization-kada oo caawiya dadka Soomaalida ee ku cusub wadanka Mareykanka iyo qof kasto caawimaad u baahan dhinac kastaba ha ahaato arrintaas oo ka soo yeedhay nin sanatara
oo la yidhaha Jeff Hayden waxaanu aragnaa arrintaa uu maaragtay Isuron organizationka oo uu maaragtay ka soo yeedhay arrintaasoo dhaleecayntaasoo ah una wax raad ah una u haynin arrintaana ay tahay dulmi oo uu ka geliyo jaaliyadda Soomaalida khaas ahaan marka waxa weeyaan Isuron waa jaaliyadda Soomaalida ayay ka mid tahay organizationkaas waxa weeyaan aad ayuu caawiyaa dadka immigrant-iga ee ku cusub wadanka Mareykanka marka Jeff Hayden waxaan leenahay mar walba waxaad madashaa dadweynaha xaafadda aad senatarka ka tahay khaas ahaan xaafadayada waxaan leenahay arrintaa ka soo yeedhay inaad apologies ka bixiso sida ugu dhaqsaha badan ayaan rajaynaynaa insha Allah haddii Ilaahay idhaaho arrintaa iyadana sal iyo raadna male waxaanan u baahanahay dadweynaha Soomaalida ee ku nool America inaan helo xuquuqdayada sidii aan u heli lahayn ayay ka shaqaysaa Isuron dhammaan dadka Soomaalida marka waxa weeyaan wuxuuna doonaynin qof Soomaaliya inuu xuquuqda helo ayuuna doonayn marka waxaan leenahay dadweynaha Mareykanka inuu fair ahaada ayaan doonaynaa arrintaana apologies ka bixiyo company-ga Isuron waa company dadka aad u caawiya dadweynaha Soomaalida ku nool Americana aad bay u yaqaanaan indhihiisa ayuu ku arkaa maanta dadka shirka jaraa'idka ka soo qayb galay marka waxaan leenahay Jeff Hayden erayada ka soo baxaya inaad ka fiirsato ayaan ku sheegaynaa insha Allah haddii Ilaahay idhaaho dadweynaha Mareykankana waxaan doonaynaa inaad fair u ahaato ayaan ka codsanaynaa kulley inaad akhrisan doonto qoraalka ka soo baxay maaragtay dadweynaha Soomaalida ee ku nool ee Amerikanka kulamidka marka waxaan ku leenahay apologies ka bixi sida ugu dhaqsaha badan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا أمد المسلمين تقولن مر بيكون لهن مجاعي وادق النور عبد الله وحن كشقيا كمبني لده أسران أم بجروب كلده أسران أيان كترسان هاي وحن هالكانت كهذا يا بوينتي وكهذا شيف هيجن نينك لده شيف هيجن أد أيوه حاجة أقول عاي قلادات بدنو نجا أنا وحن هنك community isku xiran oo community Soomaaliyeed ah waxaan caawinaa dadka wadanka ku cusub oo Soomaalida qaxootiga ah hadee rabaan wadamo kale ha u dhashaan bat wixii qaxooti ayaan caawinaa Isuron company-ga la dhaho ama group-ka la dhaho anaga oo community ah group-kaas waxaan u taageernaa aniga deeq ahaan waxay iga tahay in aan dadka caawino ma ahan in uu naga soo galo dakhli kaleento ninka la dhaho Jeff Hayden aad ayuu noogu gafay حربنا إنه بلاتشس نسيو بلاتشس كيسنة أنك أرجنا تفيدا سيدا مالها لقد زاوضو الدومات كأردن الدون كأردن حنكعد سنة نانيكاس إنه أنا بلاتشس وكبحيو دنبيجو ونجا جلي جار هناد وحال هلنا سيدا مدحوينها أكلنتو دتك خاص معذو ريستورين كس مريكنك دلك مريكنك دتك أوتاليو سيدا دتك أوتاليا من الصودا أكلنتو inta waan la hadlaynaa ninkaas anaga hanaga la qabto waay ma garanayna waxa uu noo idaacay amba uu naga rabo uu noo dhaliilaayo wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh intaas ayaan ugu baxaya